Ja, ja, ja. Ja, jag moeder hier met, wat heet dat doen? Bjerg? Biao, oké. Waar kommer du fra? Var Kina? Kina, Ja. oké. Hvad kender du om islam? Islam, det er god. Det er god. Ja, ja, det er Okay. god nok, ja. Men hvad kender du, hvad de tror? Hvad de tror? Hvad tror muslimerne? Ja, muslimer, de ejer, de ejer, hvordan siger det? Jeg kan ikke sige noget der. Okay, de... Ja, Okay. de, Kender du om Allah? Allah. Ja, Allah. Allah, hvad betyder det? Allah. Allah, ham der er skabt til det hele. Ja. Kender du Allah? Det er jo, det er god. Okay. Ja, det er god, Allah. Hvad siger kinesiske folk Allah? Allah, det er Tianku. Tianku. Ja. Okay, så thank det you very much. Og det er God, ligesom Okay, det kender du noget om Muhammed? Profeten Muhammed? Nej. Okay. Jeg kender ikke. Jeg er kun muslim, og jeg kender det, for der er mange muslimer i Kina. Så jeg kender godt det. mange muslimer i Kina, okay. De har ejer det, så hvad er det? De bier. Okay, fint. Tusind tak. Tak for det. Ja, så Tak nu for jeg hjælpen. forstår det. Okay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan waxaan ku wareysanayay nin Chinese ah oo maaragtay aan islaamka waxba ka aqoonin. Marka waxaan weydiinayay su'aalo, maxaad ka taqaanaa islaamka? Maxaad ka taqaanaa Ilaahay? Maxaad ka taqaanaa Nabi Muhammad? Marka dadku waxba kama yaqaanin diinta. Waxay u baahan yihiin dadku in wax loo gudbiyo oo dadka wax garanaya inay wax u gudbiyaan. Marka waxaan soo jeedin lahaa in laga wada qayb qaato barnaamijka balliquu cannii walow aaya. dad fara badan oo aan diinta waxba ka aqoon baa jira. Markaas waxay u baahan yihiin dadku in wax la baro. Ninkan waxba kama yaqaano diinta gabi ahaanba. Waxaan kula kulmay magaalada Copenhagen, Denmark. Marka dadka waxa loo gudbiyo balliquu cannii walow aaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا BCY TV. waxaan maanta BCY TV insha Allah aan jeclahaystay inaan wadaagno maaragtay maadaama aan kulliba dad muslimiin nahay wax yar oo maaragtay wacyigelina ama isxasuusina oo ku saabsan yani nolosha tan siday u taalo iyo maaragtay waxyaabaha inagala gudboon haddaynu nahay dad muslimiina. waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu qur'aanka inoogu sheegay waxyaabo fara badan oo noloshan khuseeya wax la soo koobi karana maaha. waxaa inagu filan fi suuratu alcasri oo keliya ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay walcasri ina alinsaana la fi khusr. dadku waxay ku sugan yihiin khasaaro ila aladiina aamanuu marka laga reebo kuwa iimaanka laga helay wa camilu asaalixaat camalada wanaagsan sameeyey وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق أو حقنا يسودر دارمي وتواسوا بالصبر صبرنا يسودر دارمي. إن مركا ينستل تاجنو سورة داسي أين وذكرنا إنه دمان تيمبا رنتي يعني سورة ده وجوه الرياء إنه القرآن كبرنا كم ده وحين أركينا إن تهاي ميسان كي قرآن كلبدي كفدود ما جرنا إنسان نلشة أردن أي إن توسيسا سورة داسي waxayna tusaysaa yani noloshan waxay tahay oo dhan bay inoo saaraysaa miiska inoo saaraysaa markaasaynu waxaynu fahmaynaa qof kasta oo u fiirsada oo ma garanaysaa leh yani tadabbur ama u kuurgal sameeya waxa uu fahmi karaa in noloshan gebigeeduba ay tahay mid un mar walba ku dambaynaysa khasaare. marka laga soo reebo dadka kan iyaga laga soo reebay ilaahay uu yidhi ila aladiina aamanuu wa camilu asaalixaat wa tawaasaw bilxaq wa tawaasaw bisabr. dadkaas waa laga soo reebay. sababta looga soo reebay waxa weeye waxay fahmeen dadkaasi ilaahay haynaga mid dhigee ma garanaysaa xayaatada adduunku waxa ay tahay. dadka qaarna adduunyadii bay isa siiyeen oo waxay ilaaween aakhiradii waxay ilaaween wixii lagu lahaa waxay ilaaween waxa ka horeeya kadibna waxa ay
يعني isku koobeen oo noloshoodii ay ku koobeen noloshan yar ee adduunyada ah ee faaniyada ah ee dhammaanaysa ayay ku koobeen noloshoodii oo dhan laakiin qofka muslimka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu maaragtay u caddeeyey oo u waadixiyey si aanu berri u odhan yacni waxba la iima sheegin ama aadamaha oo dhanba si aanay cudurdaar u yeelanin ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu bilowgii aadamahaba uu soo dirayey mar walba rasuul buu soo dirayey iyo ambiyo ayuu dadka u soo dirayey oo u caddaynayey ama jidkii markay ka leexdaanba yacni ku soo celinayey ambiyadaasoo aad u tiro badnayd oo qayb ka mida un laynoogu sheegay qur'aanka munazalka ah ilaahay subxaana wa tacaala wuu inoogu caddeeyey ilaahay subxaana wa tacaala yacni wuu inoo sheegay inay nolosha tanu tahay mid itixaana oo maaragtay yacni laynagu itixaamayo liyabluwakum ayukum axsanu camala si ma garanaysaa yacni ma garanaysaa loo kala saaro oo loo itixaamo ayukum axsanu camala xataa aktharu camala maaha kiina ugu camal badan maaha waa kiina ugu camal fiican axsanu camala camalkana waxaynu soo barannay ilaahay subxaana wa tacaala oo axaadiista ma garanaysaa inagu soo gaadhsiiyey nebiga calayhi salaatu wassalaam in yacni camalka loo eego maxay yacni laba shay in loo eego in loola jeedo ilaahay dartiis iyo in uu maaragtay uu sawaab yahay oo camalkanu uu camal yahay yacni uu nebiga laga arkay ama uu amray ama ma garanaysaayey yacni uu sameeyey marka waa camalka saalixa ah yacni sidaas buu saalix ku noqonayaa kow in nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam uu sawaab yahay oo ama qur'aanka ama xadiiska uu ku sugan yahay camalku iyo in uu ma garanaysaayey ikhlaas yahay oo ilaahay dartii loola jeedo haddii ilaahay dartii aan loola jeedin camalka waa camal lagu hoogayo waxaynu ognahay yacni saddexdii qof ee ugu horreynayey yacni naarta loogu horraysiinayey ninkii cilmiga badnaa ee ma garanaysaayey yacni naarta loogu horraysiinayey ee yidhi ilaahow cilmigan ma garanaysaa markuu ilaahay la doodayeyna ma garanaysaa intuu soo istaago odhanaya maxay ilaahayow cilmigaaga ayaan maaragtay dadka bari jiray waxaa u samaynaysay baa lagu yidhi maxay liyuqaalu laka in lagu yidhaahdo ninkan waa nin caalima waxaad ilaahay dartii ula jeeday maaha camalladu marka ikhlaasku waa shayga qura ee ma garanaysaa miisaanka yacni camalladu waxay leeyihiin maxay miisaan waxay leeyihiin sawaab iyo ikhlaas labadaa hadday ka baxaan midna waxba laguma helayo ilaahay subxaana wa tacaala dhammaanba camaladeenna ha inooga dhigo ikhlaas iyo sawaab intaba ha inooga dhigo dembigeennana ha dhaafo dembigii waalidiinteenna hala dhaafo inta xanuunsanaysana alla ha shaafiyo muslimiina meel walbay dunida joogaan dadka muslimiintana ilaahay subxaana wa tacaala meel walba ay joogaan yacni ha ku hanuuniyo jidka xaqa ah waxaynu ognahay in maanta aynu caalamka ku noolnahay waxaan la kulmay nin ma garanaysaayey nin chinese baan la kulmay markaasaan waxaan ku yidhi war ilaahay ma taqaanaa markaasuu igu yidhi allah maba aqaanba markii dambaan afdheenish ugu yar sharaxay oo aan ku idhi yacni waxa weeye waa kii wax walba abuuray baan ku idhi markaasuu af chinese isaguna iigu sheegay oo uu magaciisa iigu sheegay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni waxaa layna amray inaynu dadka diinta gaadhsiino si ay khasaarahan aayadda aynu akhriyaynay ay sheegayso ay uga fakadaan oo dhammaanteenba aynu uga fakanno haddii kale dembiilayaal baynu noqonaynaa oo waxaynu ka dhacaynaa aayaddii qur-aanka ahida la yidhi watawaasaw bilxaq watawaasaw bisabr xaq inaan dardaaranno ayaa layna amray inaynu ma garanaysaa xaqaa dhibka hadduu ka yimaadana inaynu ku sabirno oo maaragtay aynu ku sabirno sidii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ambiyadii kaleba ay ugu sabri jireen
waxaynu u baahannahay marka waxaynu u baahannahay haddaynu nahay dadka muslimiinta ah diintan inaynu xambaarno waxaa jiray aynu ognahay maanta diintu inay noqotay maxay yacni caalamka diimaha ugu ballaaran waxaan dhegaysanaya maalin raadiyowga deenishka oo denmark baan deganahay marka waxay yidhaahdeen maxaa yacni diimaha yani supermarket bay ka soo qaadeen inay diimuhu yaallaan supermarket weyn inay diimuhu oo dhami yaallaan marka waxay yidhaahdeen christianitygu waa diinta ay aaminsan yihiin in waddanka laga leeyahay bay aaminsan yihiin macnaa dadka ugu tirada badani inay haystaan laakiin ma aha sidaa xaqiiqdu waxa weeyaan dadkan waa dad iska cawaana waxba aan aaminsanayn inta badan majorityga yurub waxba ma aaminsana waxaa ku magacaaban inay yihiin ma garanaysaayey yani inay kiristaan yihiin ama nasaara inay yihiin jadwalada diinta way ku qoran tahay laakiin inta badan waxay ku odhanayaan I don't know marka waxaa la yidhaahdaa waa dadkani waxa weeye dad agnostic waa dad leh agnostic waxa weeye qof shaki ku jiro oo le waxaan u malaynaya in wax jiraan laakiin wixii garan maayo aqoon uma lihi waxay u baahan yihiin in wax la gaarsiiyo watawaasaw bilxaq bay u leeyihiin ma garanaysaa udcuu ilaa sabiili rabbikum bilxikmati walmawcidati alxasana bay u baahan yihiin inaynu dadka wax gaarsiinaa loo baahan yahay maanta waxaynu wax ku gaarsiin karnaa maxay aaladan aynu adeegsanayno iminka aynu ma garanaysaa aniguna aan ka hadlayo idinkuna aad ma garanaysaa dhegaysanaysaan ama daawanaysaan ayaynu ku gaarsiin karnaa wax oo loogu turjumay maxay afaf kala duwan qof waliba afku yaqaano hadduu ku turjumo waxa weeye diintu way gaadhaysaa way fidaysaa waxa weeyaan yani diimuhu markaa waxay yaallaan bay yidhaahdeen markaan ku noqdo mawduucii hore yani macnaha supermarketka diimaha lagu iibiyo ee dadku ay ka gataan yani supermarket bay ku mateleen yani wixii diimaha la odhan jiray yani supermarket weyn marka waxay yidhahdeen diinta kiristaanku waxay taallaa koono yar oo maxay ah yani waxay isticmaalaan kelmadda ah kedli waxa weeyaan yani boring waa koono yar oo caajisa oo aan cidi waxba ka iibsan bay taallaa kiristiyaanadu sida ay yidhaahdeen macnaheedu waxa weeyaan cidi ma iibsanayso diimihii kale iibsami maayaan waxa weeye diinta qura ee maanta iibsami kartaa waa diinta islaamka waxaynu u baahannahay markaa inaynu dadka sidii aynu wax ugu gudbin karnaba aynu ugu gudbinno dhammaanteenbana waajib baa inaga saaran kiliib yaroo la duubay oo maaragtay qof waliba uu duubay ayaa ku filan oo luqadda uu yaqaan uu ku duubay ayaa ku filan oo wax badan yani gaadhsiin karaa waxaan waraystay mar nin deenisha oo aan ku idhi maxaad ku soo islaamtay markaasuu yidhi warqad yar oo nin soomaaliya ii dhiibay warqad yar oo warqadahan yaryara oo islaamka uu ku qornaa cisbitaal baan ka shaqaynayey ayaan ku soo islaamay buu igu yidhi isagoo cisbitaal ka shaqaynaya ayaa kana wuxuu cisbitaalku ka shaqaynayey warqad yar buu u dhiibay dabadeedna warqaddii yareed wixii ku qornaa buu akhriyey dabadeedna ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa hanuuniyey dadku waxay u baahan yihin markaa wax la gaadhsiiyo marka aan ku noqdo ninkii chineeska ahaa ee aan la kulmay halkan baan idinka tusi doonaa insha allah biidni illahi kariim afdheenish baan kula hadlayey wuxuu yidhi wakti ma haysto waktiga gebi ahaanba ma haystaba laakiin 3 su'aalood baan ku idhi keliya iiga jawaab 3 su'aalood bes baan ku weydiinayaa ilaahay ma taqaanaa keenadu allah ilaahay ma taqaanaa islaamka ma taqaanaa waa wax wanaagsan buu yidhi waa wax wanaagsan buu yidhi islaamka ilaahayna afdheenish baan ugu yar sharaxay waa kii wax walba abuuray baan ku idhi kadibna wuxuu maaragtay kadibna uu yidhi maaragtay haa waxa weeye af Chinese buu isaguna ku sheegay waa ilaahay wax walba abuuray waayahay muxamed baan idhi ma taqaanaa marka nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wassalaam maya buu yidhi bal yacni dadkii markaa waxay u baahan yihiin in ma garanaysaayey in wax loo gudbiyo wax yar oo wax ka akhristo loo gudbiyo qofka clip yaroo la duubay loo gudbiyo ma garanaysaa youtube yar la siiyo wuxuun in dadka la siiyay u baahan yihiin waxaynu u baahannahay inaynu diintan xambaarno oo iibinno oo aynu ka iibinno maxay aynu ummadaha ka iibinno
waayo nebigu muxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam balliguu cannii walow aaya udcuu ilaa sabiil ilaahayna muxuu leeyahay udcuu ilaa sabiili rabbikum bilxikmati waalmawcidati alxasana marka waxaynu u baahannahay inaynu baraarugno oo aynaan hurdin waayo diinteenna maanta media ayaa lagu magaranaysaa lagu weerarayaa weerarkaa ku socda waxaa loo baahan yahay inaynu iska inta xanaaqno iska cadhoonno oo iska magaranaysaa yani looma baahna waxaa loo baahan yahay inaynu inaguna xikmad bay isticmaalayaan inaguna aynu xikmad isticmaalno xikmadday isticmaalayaan waa maxay waxay rabaan dadka inay diinta nacsiiyaan bay doonayaan xikmaddaas ayaa inagana la rabaa inaynu maxay diintii dadkii jeclaysiino inaynu u gudbinno ma arkaysaa inaynu u gudbinno inuu u baahannahay sidaa daraaddeed waxaynu dhammaanteenba u baahannahay inaynu sheer garayno oo ma garanaysaa subscribe garayno oo aynu wada shaqayno oo ma garanaysaa watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan wax badan oo culummadu ay duubeen dadka soomaalida ee afka soomaaliga ku hadla inaynu u gudbinno dadka afafka kale ku hadlana maxaan ku dhaha dad fara badan oo culummo ah oo kale ayaa duubay intan waa baraarujin keliya waxaynu u baahannahay inaynu gudbinno oo dadka aynu wax u gudbinno waddanka dhan ee maanta lagu magacaabo indonesia yani waxa ku nool muslimiinta ugu badan caalamka ayaa ku nool sidee bay ku soo islaameen waxay ku soo islaameen dacwadii iyo khuluqii wanaagsanaa ee dadkii ma garanaysaa ay ka arkeen muslimiintii hore ayay ku soo islaameen yani waxaa la sheegaa in yani waxaa la sheegaa mar maxaan ku idhahdaa inay u tageen dad ganacsi iyo waxaas inay ugu tageen oo dabadeedna ay khiyaamadii dadku bini aadamku uu isticmaalo had iyo jeer ilaa iyo xataa maanta xataa wadamada waaweyn ay isticmaalaan oo yani khiyaamada productigii waxaad arkaysaa shaygan lagaa iibinayaa magac buu wataa magacaad doonaysay buu wataa laakiin shayga ku jira waa shay aad tayadiisu u lidato oo ma garanaysaa lagugu khiyaamay xataa dadka qaar waxaa laga iibiyey kiniin baa laga iibiyey kiniinkii markii la kala furfurayna waxaabuu noqdayba mar uu noqdayba yani waa khiyaamo waxa weeyaan waa yani qur-aankuna wuuba ka hadlay waxa weeye waa dadka maaragtay suuradan baa ilaahay ka soo dejiyey dadka ma garanaysaa ee khiyaamaya miisaanka tayada iyo ma garanaysaa ee khiyaamaya waa laga soo dejiyey marka waxaynu u baahannahay in aynu balliquu cannii walow aaya inaynu ka wada qayb qaadanno haddaynu nahay rag iyo dumarba dadka muslimiinta ah si ummaddatan waxaynu gudbinaynaana waa inay noqdaan maxay wax nafaheenna ka muuqda oo maaragtay nafteenna ka muuqda waa inaynu joojinno maxay yacni dhaqan xumada oo aan laynagu arkin oo la odhan muslimiintu waa dad dhaqan xun waa dad been badan waa dad ma garanaysaayey khiyaamo badan waa inaan laynagu odhanin oo maaragtay aynu noqonno dad wanaagsan oo xambaaray diinta oo role model u ah sida nebigii calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabaduba ay u ahaayeen maxay role model siday u ahaayeen inaynu noqonno ayaa loo baahanyay role model inaynu noqonno oo aynu ummadaha iyagu shaydaanku wuxuu isku dayayaa maxay in uu diinta tan ka hortago xaq iyo baadilkuna weligiiba hirdigaas wuu ka dhexeeyaa xigmadda maanta caalamka loo baahan yahay dagaalkii yani qoriga ahaa iyo seefta ahaa waa laga gudbay oo waxa weeyaan caalamku wuu kasii gudbayaa waa jiraa dagaallo way jiraan caalamka laakiinse dagaalka ugu xooga badani waa kii uu ma garanaysaa ninkii gabayaga ahaa soomaaliyeed uu sheegay yowle la odhan jiray afku wuxuu la xoog yahay magliga xawda kaa jara yani afku wuxuu la xoog yahay haddaynu hadalno waxa weeyaan miidiyahan waa baawar ka mida baawarrada caalamka maanta ugu waaweyn awood ka mida weeyaan awoodaha mid ka mida baad haysataa marka waa inaad hadasho waa inaad marka xumaan lagaa sheego aad wanaaggaaga muujiso aad sabir yeelato ma arkaysaa aynu sabir yeelanno ayaa loo baahan yahay diintana aynu ka shaqayno oo aynu ku fikirno si aynu dadka u gaadhsiin lahayn marka intaas baan jeclaystay inaan wadaagno maadaama dad badani aanay xataa nebi maxamed maqlin sidaan hore usoo sheegay aanay xataa qaarkood allah magaca allah xataa qaar baan maqlinba magaca maxaan ku idhahdaayey allahuma salli calaa maxamed islaam way wada maqleen islaam keena duu islaam markaad tirahdo ma taqaanaa islaam do you know islam haabay ku odhanayaan laakiin yani muxamed haddaad weydiiso qaar badan baaban maqlinba
hadday maqleenna maxay ku maqleen waxa weeyaan waxay ku maqleen waxyaabihii la sasawiray iyo waxyaabo noocaasa bay ku maqleen muslimiintana maxay ka maqleen waxa idaacaduhu ka sheegaan oo keliya waxa idaacaduhu ay ka sheegaan oo keliya marka waxaynu u baahannahay inaynu balliquu canni walow aaya si qurux badan uga wada qayb qaadanno iswada gaadhsiino wada sheergarayno oo aynu maaragtay watacaawanuu cala albiri waataqwa isu kaashada maxay biriga iyo taqwada ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هذا وبالله توفيق صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين